kiiskan aan maanta idinla wadaagayo waa mid runtii aad u la yaab badan. Waxa uu ku bilaabmay qof la waayay oo muddo badan la baadi goobayay oo lagu wareeray, laakiin markii dambe sheekadii qaab kale ayay isu bedeshay. Meel aan laga filayn ayay dambibaarayaashii la gashay. Waxay isu bedeshay umuuro waaweyn oo ka culus tii ay bini'aadamku garanayeen. dambibaarayaashii waxay la kulmeen shaqo aan tooda ahayn. Haddii aan hadalka idiin sii jilciyo, waxay la kulmeen umuuro kale oo cabsi oo aanay filayn. Micnaha umuuro awoodda dabiiciga ka baxsan. Jinnimiya, jaanmiya, khaakmiya, khuukhmi idinkuna la jooga. haddaba maxay tahay sheekadani? maxaase ka dhigay mid ka mid ah sheekooyinkii ugu layaabka badnaa ee abid ka dhaca gudaha dalka Taiwan? maxaase keenay inay booliiskii dambibaarayaashu qirtaan inuu kiiskani la galay umuuro ka baxsan awoodaha dabiiciga? ninkani soo fadhiya ee idin hor fadhiya waa Muu Fahmi. channelkuna waa channelkeena dadweynaha ee YouTube. ku soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkeena maanta. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي القيمة كنا جنلك دوينها يوتيوب صاحبي كسر هذا مقال كنا مانتا سودو ولا صاحبي المركلة كيس كنا مانتا طبعا ومد لحليه أو تنبين لجسل قاعدي، لكن حل كاسي ومد كأو مقال كنا مانتا كوس عبزين يهودو سعرين يهيبة صوته حل كاس عن نقطة بمد ليام له شكل باللوجي هره وحي كوس عبسنايد قف عادي أو لواي أو لو وراري أو الراديي، لكنه تنبين شكل واحد سو بدش مد عبسية واحد شكل بدلي عقاب كاسي عبسي ده وبدلنا مقال كان كودي سعينه ogaan doonaaye dadka markaa saaxiibayaal hadaba aan jecelayn sheekooyinka cabsi iyo jinjinkii waxyaabo noocaas ku yeerna saabsan sheekadan tiina maaha, laakiin dadka xiiseeya sheekooyinka noocaas oo kale waxyaabo fara badan ku ogaadaan. dabcan definitely sheekadan waa tiina. sheekadan muhiim ayay idin tahay sababtoo ah kiiskani waxa uu ka mid yahay kiisaska farakotiriska ah ay booliiska iyo dambibaarayaashu si toos ah u qirtaan in waxyaabaha ay arkeen ay ka baxsan tahay awoodda dabiiciga. inta badan umuuro noocaas ah waxa ka sheekeeya dadyo aan lagu kalsoonaan karin, dad umuuro xiriyo waxyaabo noocaas ah aaminsan, laakiin way adag tahay inta badan in la arko booliiskii oo caadi u qiranaya in meeshan waxyaabo awoodooda ka baxsan ay ku arkeen. anyways hordhacayana waxba ku sii dheeraane toos aan u gudagalo kiiskeena maanta. adiguna maxaad samaynaysaa? shaaxaaga soo qabso, fadhiga toosiso, haddii aad socotid xataa socodka toosiso, dhegahaaga yaa tanshinkanaysi. dadka doonaya sheekadu inay cabsi zaid oo sii noqoto sir bay idinka tabageynaya. haddii aad qol ku jirtid keliga laydhka demi, qolka gebigiisaba mugdi ka dhig. haddii laakiin fuli aad tahay laydhka haddaadan sitid qolkaasi orod baad kaga bixi doontaa. marka janalkana inaad orod kaga baxdid ma rabee laydhka waxba hadansan caadi ku daawo. subaxnimada bishii February 4 sanadii 1991 nin darawal gaari kira ah oo taxi ah oo lagu magacaabo Wang ayaa waxa uu la fadhiyay maalintaasi ayada shaqaale fadhiyay xafiiska diridda tagaasida iyo gawaarida. yacni qofkani waa qof fadhiya office ama xafiiska, deetana waxa uu kala diraa tagaasida iyo gawaarida kirada iyo waxyaabo noocaas oo kale. markaa ninkani taxiilaha ah ee lagu magacaabo Wang ayaa hadaba shakhsigaasi la hadlayo la sheekaysanayay. haddaba ninkani lagu magacaabo Wang ayadoo wada sheekaysanayaan oo wada hadlayaan ayaa waxa ku baraarugy shaqaalihii xafiiska fadhiyay oo Wang gadaashiisa ama xaggiisa dambe daaqad ka dambeysay aad u fiirinaya. Wang baa yaabay intuu naxay buu degdeg xaggiisa dambe ee daaqada u fiiriyay, asagoo shiri bisinka malaha qofkani waxa uu fiirinaya wax daba taagan. markii uu daba sii jeestay wax saas u weyn oo ka yaabaya maanu arag, kaliya waxa uu arkay daaqad ka dambeysa. daaqadii markii uu dib u fiiriyayna waxa uu arkay daaqada inay ka dambeyso meel baarkin oo taksiyadu istaagaan, oo waqtigaasi jaamiska ahaa taksiyo fara badan taagnaayeen iyo nimankii taksiilayaasha oo meelahaasi taagtaagan oo sheekaysanaya. wax saas u weyn oo laga saso maanu arag. xafiiskani taksiilayaasha hadaba waxa uu ka ag dhawaa madaarka magaalada jaamka ah ee Kaohsiung ee ku taala dalkaasi Taiwan. xafiiskan hadaba saaxiibayaal waa mid mashquulkiisu uu badan yahay maadaama airport uu ku dhow yahay. mashquulkiisa ayaa iska badnaa oo dalabaadka la soo dalbanayo taksiyada iyo gawaarida kirada ayaa iska badnaa. markaa waxa uu ahaa mid furan oo shaqaynaya 24 saacba. dad baa garoonka diyaaradaha ka soo degaya, taksi bay u baahanayaan, shirkadaasi ka soo dalbanayaan, gaari bay ka karaysanayaan, shaqadu zaid bay ugu kala socotay. markaa ninkani lagu magacaabo Wang wax saas uga yaabay maanu arag, kaliya waxa arkay gawaaridaasi taksiga ah meesha buuxa iyo taksiilayaasha. deedna qofkii ayuu ku soo jeesto waxa weydiiyay waxa sidaas oo dhan kaaga yaabiyood fiirinaysid waa maxay xaqiiqada daba maxaad ku aragtay? deedna shaqaalihii ayaa si gaar ah waxa uu farta ugu fiiqay cirif ka mid cirifyada daaqada, asagoo dibadda meel gaar ah farta ku fiiqaya. Wang ayaa mar kale dhinacii daaqada u soo jeestay, asagoo isla mar ahaantaana fiiriyay meesha oo farta sida gaarka ugu sii fiiqay. deedna Wang ishiisu waxay qabatay nin kale oo saaxiibkii ah oo taksiila ah oo isla shirkadan u
shaqeeya oo lagu magacaabo Leo Shawshang wuxuu arkay miskiinkii saaxiibkii tagsiilaha ahaa oo gacantana ku siita sanabkiisa dahabiga ah ee Buudha isla mar ahaantaana dhax ordaya baarkinkaasi tagsiga banaanadaas isagoo ordaya cararaya ninkii buu fiirsaday ninkan wuu ordaya argagax fara badan ba ka muuqda kolba gaari buu ku daba wareegaya sidoo uu ordiyo kolba luuq ugu wareegayo kolba gaari ugu daba wareeganayay baa ugu dambeyn waxa uu dalaqiiro isku tuuray gaarigiisii kadib markuu gaarigiisii sida uu kale waxa uu bilaabay inuu daaqadee xidho muraadihiina uu dalaco deetana si cabsi fara badan ay ka muuqato ayaa waxa uu soo fiirinayay hareeraha gaariga asagoo gudaha gaariga ku jira waan wuu yaabay waninka maxaa eryanayay sidii hareeruhu fiiriyay nafar bin aadan oo ninkaasi cayrsanaya amaba si eryanaya uma jeedo bahal eryanaya uma jeedo ninka waxa uu ahaa uu keligi asagoo ordaya oo boodboodaya oo taxis ku tuuray oo soo xidhay waninka maxaa ku dhacay isweydiiyay ninka saaxiibka balaayada qabsatada u jeedin maxay tahay shaqaalaha iyo waan ayaa daaqada ku soo dhawaaday si oo fiiriyaan ninkan wax eryanaya waxa ku dhacay Leo markuu saa gaarigii u galay oo hareerahana fiiriyay oo dareemay inuu ammaan ku sugan yahay naqas ayaa ka soo go'ay ayuu yiri gaariga sidoo kale waxa ugu dhex jiray laba sanam oo kale oo Buudha oo dahabiya kii kale oo gacanta ku haystay saddexaad ayuu dhigay dhinaca dashboardka gaariga xagga hore waxa uu bilaabay inuu indhahaas ku qabto saa kursiga ugu jiibsado saa ugu tiirsado deetana dabnihiisii ayuu dhaqdhaqaajiyay sidii inuu wax akhrinayo sidii inuu ducaysanayo kale waan iyo shakhsigii xafiiska fadhiya shaqaalaha ahaa way yaabeen ninkan way garanayaan xogay dhaqamadiisu la yaab iska ahaadaan bee laakiin xaalad noocana weligood kumaanay arag waxa labadoodaba u cadaatay inuu wax weyn ninkan ka qaldan yahay inuu qalad weyn jiro inaanu sidan saaxi ku ahayn ayaa dareemeen Leo hadaba waxa waqtigaasi ahaa nin 35 jir ah oo single ah oo keligii guri ku noolaa waxauna ahaa nin tagsiila oo shirkadan la shaqaysta dhaqan ahaan ninkani shakhsi furfuran maanu ahayn shakhsi mar walba wuxuu ahaa dadan aamusan shaqadiisa kaliya ta qabsada aan bulshaawi ahayn oo bulshada dhaxgelin shakhsi waxa uu ahaa iska qunyar socda oo gooni socda oo aan bulshada inteeda kala ku milmin sidoo kale waxa uu ahaa shakhsi marka uu hadlo wax wanaagsan ku hadal yacni waxa uu ahaa qof rude ah oo aan aqoon sida dadka loola dhaqmo oo loola tacaamulo qof uun iska xanaaq badan oo macaankaga sidaas awgeed tagsiilayaasha iyo dadka kale garanayayba way ka dheeraan jireen ninkan inay ku soo dhawaadaan oo ay la sheekaystaan afaarihiisa ma baan geli jirin sababtoo ah ninkan warkiisu waxa uu ahaa hay taaban kuma taabanaya hay daarin kuma daaraya xataa macaamiisha tagsigiisa raacda badanaa way ka soo dacwoon jireen ninkan habdhaqankiisa inaanu ixtiraamin dadka inuu hadallo taagtaagan oo diiran oo kulkulul ugu jawaabo oo kula hadlo dadka macaamiishuna waxa ma jecla macaamiishu waxay jecel yihiin mar walba shakhsi furfuran oo dhoola cadeen ku soo dhaweeya laakiin nin tagsigiisa markaa soo fuushid oo tiraahdo hay hay dawan saatahay kugu jawaabo noo saanahayn waxa kaama gelina tagsiga ayras ka fadhi meesha rabtaan ku geeyne xageed afka dheer noola soo gashay armaana saaleedahay hadan saa kale dib adii kala tagsiga nooga deg Leo noocaas iska ahaa laakiin Leo dhaqamada lagu yaqaan waxay ahayd dadka maanu soo doondooneen dadka maanu dhibaateenin qofka si kibra afka wala maanu soo galin nin dantiisa yaqaan buu iska ahaa laakiin mudooyinkii u dambeeyay dadkii wada shaqayntu ay kala dhaxaysay dadkii garanayay waxay dareemeen Leo habdhaqankiisu inuu mudooyinkii u dambeeyay zaid u soo bedelay xanaaqiisii zaid buu noqday habdhaqankiisii waxa uu noqday qalafsanaan zaida waxa wajigiisa laga dareemi karayay qaadiro iyo inaanu muddo badan seexan gudadka indhihiisu zaid u madow yihiin inaan yacni muddo badan seexan dushiisa uskag fara badan iyo inaanu qubaysan wajigiisa ay ka muuqato didsanaan iyo argagax iyo inuu dhaha taagtaago mar walba hareerihiisa fiiriyo waninkan saga maxaa u khaaray maxaa ku dhacay qofkii arkayba waa uu la yaabaya ninka habdhaqankiisa ninkani dhinaca nadaafadda uu ku dadaali jiray ha iska wax xidhnaadee laakiin waxa uu ahaa shakhsi tartiibsan oo shaqadiisa yaqaan oo nadiif oo clean ah gaadhigiisu carfayo maasha Allah iska ahaa laakiin mudooyinkii u dambeeyay gabigiisu ninkan waa sax daadsan yahay qof waliba hadaba asagoo dareemaya Leo inuu wax weyn ka qaldan yihiin haddana kumaanay dhiiranayn inay weydiiyaan waxa ku dhacay iyo waxa ka qaldan sababtoo ah waxay filanayaan jawaabta afkiisa ka soo bixi doontahay inaanay noqon doonin mid fiican inuu dadka hortooda ku bahdili doono ereyo xunxun u isticmaali doono ku qaylin doono buuq ku kicin doono marka qof waliba asagoo arkaya inay wax weyn ka qaldan yihiin haddana afkiisa ayuu iska xiranayo shaqo iyo shuqul kumaanu darsanayn sababtoo ah behaviorkiisa iyo caadooyinkiisa iyo jawaabaha ay kala kulmi karaan ayay qiyaasayaan ninkan
haddaba dadkii sida gaarka Leo ay isugu dhawaayeen saaxiibadii ha noqoto dadka kale ofiskaasi ka shaqeeya shaqaalaha ha noqoto waxay arkeen asagoo sheekooyin la yaab leh oo ga sheekeynaya oo ga dacwoonaya waxa uu ka dacwoonayo waa bisadaha iyo ayaha darbijiifka meelahaasi ku nool banaanada mar waliba waxa uu u sheegi jiray soo bisadahaasi iyo aydaas u dhibsaday iyo khaatiyaanka uu ka taagan yahay niyoon ayahan iyo bisadaha naftii ilaahayba ii keeneen waan nacay waan karhay I wish in bisadahani iyo ayahani waxaan jeclaan lahaa inay ka tirtirmaan oo dabar go'aanba sababtoo aan naftii ilaahayba ii keeneen qof walba uu yaabay oo xubsilaha bismillah war ayahani iyo bisadahan masaakiinta ninkan maxay ka biyeen waa maxay baryahan waxa tusay aydan iyo bisadahan masaakiinta ah ee banaanada isaga nool muxuu ka rabaa laakiin ninka qaabkiisa markii loo fiirsaday serious ay ka tahay aydan iyo bisadahan wuu nacay ceel buuna u qabaa arrimahan ayaha iyo bisadahu runtii saaxiibadii Leo aad bay uga yaabiyeen aad bay u cabsi geliyeen kadib markii uu u sheegay oo ga sheekeeyay sheekooyin runtii aad ula yaabeen waxa ku yiri nimahan anigu waxaan soo gatay baalkan yar ee hubka ah sida leebi qaasado u samaysan adoo aaldana jeedaan taasan soo gatay deetan maxaan sameeyaa buu habeenkii dibadaan u baxaa kadibna waxaan ugaarsadaa ayaha iyo bisadaha meelaha banaanada joogjooga ku nool hadafkaygu wuxuu yahay inaan agagaarka aan deganahay iyo wadooyinka magaaladaba ka nadiifiyo bisadaha iyo aydaha waxay arkeen ninkan inay waxaan serious ka tahay aad bayna runtii ula yaabeen oo ga naxeen ninkan habdhaqankiisa waxyaabaha kale saaxiibadii aad ula yaabeen ku arkeen waxa kamid ah habdhaqamadiisa ay aad kula yaabeen waxa bilaabay inuu gaadhigiisii uu ka soo dhex buuxiyay asnaamta buura oo ah sanabay caabudaan dadka diinta buudhisimka aaminsan waxa bilaabay inuu sanabkaasi gaadhigiisa qaybo kala duwan u dhigo xagga hore xagga dambe wajahada hore xagga hoose meel kasta u dhigdhigo sidoo kale waxay arkeen inuu gaadhiga uu ku dhadhajiyay waraaqo midabkoodu yellow yahay ama base midabka huruudda ah leh oo ku qoran yihiin gudaheeda qoraallo uu kulay cibaado ah oo adigu ducooyinkooda marka daaqadaha gaadhigiisa ayuu ku dhadhajiyay asagoo ujeedadiisu tahay sidoo aaminsan yahay in arwaaxda iyo jiminka waxyaabo noocaas ay ka difaacayso oo ka ilaalinayso marka ninkii la ahaa gaadhigiisii waxa uu bedelay gebigiisaba macbad yar haddaan idin idhaa ka waran heer waxa uu gaadhsiiyey gaadhigii oo marka uu wado si fiican xaggiisa hore u arki waayo yacni xagga hore gaadhigii waxa uu ka buuxiyey sanam iyo waraaqo uu ku wada dhadhajiyey muraayadii hore qof lahalay qofkii tagsigiisa soo galay waxa uu dareemayaa inuu soo galay meel macbada oo wax lagu caabudo anyways dadkii garanayay dadkii u dhawaa markay arkeen ninka xaalkiisa gaadhigiisa oo gebigiisa bedelan habdhaqankiisa way ka dhaceen oo adu shaqo kumaanay darsan shaqo iyo shuqul kumaanay darsan way ka wada aamuseen laakiin maalintii habdhaqankaasi la yaab kale ay ku arkeen Wang iyo shakhsigii shaqaalaha ahaa ee ofiska fadhiyay markay arkeen ninkii oo baarkinga dhexdeeda ordaya kadibna gaadhigiisa isku dhex tuuray oo soo xidhay oo waxa akhrinaya intuu haddana gaadhigiisa isku soo xidhay waxay dhahdeen no wax weyn qaldaniyo sidan caadi kuma aha Wang iyo shakhsigii shaqaalaha ahaa waxa isku afkarteen inaanay ninka sidan ay ku daawan inaanay ninka qaabkan aanay ku daawan Wang deetan waxa uu go'aan ku gaaray inuu booliiska waco kuna wargeliyo ninkan xaalkiisa ninkan xaalkiisa ma bogin mudooyinkii u dambeeyay xaalkiisa waa bedelna habdhaqankiisa waa bedelna imikana xaalad noocaas aan ku aragnay marka niman yahoon ninkan hal soo gaaro annagu kulay waanu ka baqanaa afaariisa ma gali karre idinka dawladdiye ninkan waxa loo qabto Wang intii aanu booliiska wicin ka hor asagoo telefoonkii soo qabsaday ayaa waxa uu arkay Leo oo gaadhigiisa degdeg meesha uga soo saaray oo xoog u kaxay gaadhiga heer gidaaradii uu jiiri gaadhay uu degdeg meesha uga cararsaday yacni inuu meesha ka baxsanayo kale Wang wuxuu yiri no way degdeg waana booliiska waca marka Wang waxa uu wacay nin saaxiibkii oo booliiska ka tirsan arinta Wang ayaa nooga sheekeeyay laakiin arinta ka yaabisa Wang ayaa waxay tahay ninkani booliiska oo wacay ku wargeliyay waxa uu jawaabay ha Leo xaalkiisa waan la soconaa si fiican baan isha ugu haynaa ninkaas oo dabagal baan ku haynaa iya dabagal ha ama maxaa dabagalka lagu hayaa ninkaas Leo lagu magacaabo jariimo weyn dambi weyn oo dil ah ayaa looga sheekaysan yahay sidaasi ogeed ninkan already dabagal baynu ku haynaa dhaqdhaqaaqiisa iyo wax alaali wuxuu sameynayaba ishaynu ku haynaa habdhaqankiisana runtii waa midaan la yaabanahay Wang waa yaabay dawladdiiba xataa ninkan xaalkiisa la socota okay buu iska dhiga telefoonka okay su'aasha meesha talaya waxay tahay maxaa qaldan say wuxuu jiraan dambiga ninkan looga sheegtay muxuu yahay okay umuurani waxay bilaabmeen hadaba 10 bilood ka hor intii aanay Wang iyo ninkani habdhaqanka noocan aan ku arag Leo sheekadana 10 bilood ka hor bayba soo bilaabatay dhacdadu waxay soo bilaabatay bishii Afraad sanadii 1990 waxaanay ku bilaabmaysaa gabadh Japanese oo dalka Japan u dhalatay oo 23 jir ah laguna magacaabo Mariko Ekochi gabadhani hadaba dalkaasi Japan u dhalatay ayaa waqtiga waxay go'aan ku gaadhay inay fasaxeeda ku soo qaadato ee ku soo dhamaysato dalka Taiwan laakiin dalka Taiwan markay timid gabadha ayada ahayd way isbaabisay dib looma arag way qarsoontay maxaa ku ri gudaha dalka Taiwan ayaa gabadhii martida ahayd ku qarsoontay oo maxaa qariyay oo baas gabadha miskiinta ah
okay waan soo leegidana waxa soo dhan waqtigaasi hadaba sagaashameedii dalkaasi Taiwan waxa uu ku tiirsanaa baa la oran karaa yacni dhaqaale fiican ay ka soo gali jireen dalxiisayaasha ka imanaya dalka Japan dalxiisayaasha dalka Japan ka imanaya ee u imaanaya dalka Taiwan ayaa dalka Taiwan waxa ka soo gali jiray dhaqaale fiican sidaas ogeed mar waliba shacabweynaha reer Japan ayaa waxay mar waliba ka gadi jireen oo u xayisiin jireen dhulkooda meelaha loo dalxiiso quruxdiisa si ay u soo jiitaan dalxiisayaasha ka imanaya dalka Japan sidaas ogeed waqtigaasi dadka shaqaalaha badankooda ardayda waqtiyada ay fasaxa ku jiraan wadamada ugu horeeya ee maskaxdooda ku soo dhacaya inay ku dalxiisaan ayaa waxa kamid ahaa oo kow ka ahaa la oran karaa dalkaasi Taiwan aad bay u soo dalxiisi jireen Taiwan marka Mariko waxay kamid ahay dadkaasi dalxiisayaasha gabadhan maalintii soo gaaraysa dalkaasi Taiwan kaligeed ayaa timid oo qofna lama socon qof ay iskaranayaan lama socon qorshaheeduna waxa ahaa in dalka Taiwan ay ku sugnaato muddo dhowr maalmood kadibna ay isaga soo laabato dalkeeda Japan waqtiga hadaba saaxiibayaal taksiilayaasha farsamooyin cajiib ayaa waxa uu isticmaali jireen dadka dalxiisayaasha farsamadan amba si qorshahani waa mid taksiilayaashana dan ugu jirto dalxiisahana dan ugu jirto ninka taksiilaha waxa ka oranaya dalxiisaha niyo farsamo ayaa ku haya gurigayga aniga familkayga ayaa degan hal qol ayaa naga banaan qolka iska soo dago isaga sugno muddadaas aad joogtid dalka xagga hoteeladu ay lacag fara badan ka qaadi lahaayeen kharash fara badan oo kaga bixi lahaa qolkayga yar iga karayso lacag ka raqiisantaa hoteeladana aniisi si fiican dalka isaga dalxiis wadii cajiiba waliba marka uu taksiiluhu soo qaadiyo shakhsigaas waxa lacag kama qaadayo lacagtu waa kirada qolkaas bis barbahadeed raacisid si bilaashan kugu sii qaadayaan xaafada kugu geyn hadaba taksiilihii soo qaaday Mariko isla arintaas ayuu u soo bandhigay oo markii uu madaarka ka soo qaaday asagoo u sii wada hoteelkii uu qorshaheedu ahaa inay degto ayaa markay dhaxda sii marayeen waxa uu ku yiri ka waran qolba iga banaan guriga hadii aad qolkaas iska soo degtid lacag raqiisan aan ka qaado muddada aad gudaha dalka ku sugan tahayna aad iska deganaatid hoteeladan way dhib badan yihiin lacag fara badan ay ka qaadayaan Abdullah bay ku ridayaan qorshihii markuu hadaba gabadhan u soo bandhigay taksiilahani isla markii toos buu aqbashay waxaana ku tiri waa si wanaagsan haday saatahay de gurigaaga way naga wacaadi maxaa hoteelkan qaaliga iga sii wada laakiin Mariko markii ay ninkani taksiilaha gurigiisa soo degtay muddadii ay gurigiisa deganeed ayaa gabadhii ayada ahayd la waayay meel allaaliya meel ka dhacday hadaba gabadhii ayada ahayd markii lagu baraarugay waayitaankeedii ayaa booliiskii waxay soo raadiyeen taksiilihii maalintaasi qaaday ee ka soo qaaday garoonka gabadhii Mariko ahayd waxaana ku yiraahdeen niyoon gabadhaas adaa soo qaaday gurigaaga ayaad keentay gurigaaga markii aad keentayna gabadhii waa la waayay ee xay ka dhacday deetana waxa ugu jawaabay warun gabadhaas sana soo qaaday gurigeyga ilaa dhowr maalmood ayay deganeed ugu dambeeyna saamaankeedii ayaa goratay way naga soo dhaqaaqdo way naga tagtay macnaha way naga guurtay dhowr maalmood kadib booliskii way isaga tageen dhowr cisho kale ku soo laabteen balse uu warkii hore waraga degan oo siiyay bas information cusub ay uga helaan laakiin isla intii uu sheegay ayuu buu sheegay markii booliska waxa uu cadaatay in hadalkiisu uu run yahay gabadhaasina dhowr maalmood kadib ay isaga guurtay sababtoo ah isla maalintii uu yiri way iga soo tagtay gabadhan ayaa fariin waxay u qortay u dirtay qoyskeeda warqadaasina gacanteeda ayaa ku qortay oo yacni fartufateedii ayay ahayd sidaas ogeed leeska dadka looga sheekaysan yahay ninkii taksiilaha ahaa waa laga saaray gabiyahan kiiskaasina saaxiibayaal waxa uu noqday mid sidaas ku qaboobo oo dhan loo dhaqaajiyo ayaa la garan waayay cid loo raaco amba bas lagu tuhmi karo oo kale ayaa la waayay gabiyahanba lama ogaan taksiila kale oo intuu kaxeeyay meel geeyay amba bas meel kale ay degtay meydkeedii lama arag yacni way adkaatay gabadhii arinteeda xog kale oo muhiim ah in laga helo sidaas ogeed waxay sameeyeen gabadhii ayaa madaxeeda waxay dul dhigeen abaalmarin oo waxay yiraahdeen qofkii gabadhaasi meel uu ku soo sheega lacag abaalmarin ah ayuu nagu leeyahay intaas kadib waxay helayeen booliisku koolal fara badan oo kala duwan oo qof walba leeyahay gabadhaas waan arkay gabadhaas saas ay ahayd xagaasan ku arkay asagoo mid walba lacag raadinaya hadaba maalin maalmaha kamid ah booliiska waxa soo gaaray kool muhiim ah oo kiiskii waxyaabo fara badan ka bedelay waxa uu sheegay shakhsigani intii aan gabadhaasi la waayin ka hor in uu gabadhaasi ku arkay meel station shakhsigaasi waa kuma shakhsigaasi waa Leo ninkii habdhaqanka la yaab ka lahaa ninkii taksiilaha ahaa aslaftirkiis waay Leo ayaa hadaba saaxiibayaal loo yeeray markii la soo fariisiyay ee la wareystay ayaa waxa lagu yiri niyahoon bal gabadha war naga sii xayd ku aragtay maxay tahay wuxuu yiri gabadhaas markii uu horeysay waxaan ku arkay meel train station ah oo tareenada laga raaco lagana soo dego gabadhaasi Mariko markaasi tareen ayay ka soo degtay tareenkii markay ka soo degtayna taxi ay u baahnayd taxigayga ayaana soo fuushay meel magaalo ah ayay ku tiri gaarsii meeshii ban gaarsiiyay markaan meeshii gaarsiiyay waan xisaabiyay lacagtii bay siisay magaalkeeda ayaa gashay marka
markaasaana igu aragti dambeysay dibno maan arag anigu lama sheekaysan xagee ka timid maan odhan mana aanan soo bandhigin inay gurigayga qayb ka mid ay soo degto oon lacag ka qaato maba si aan ka kireeyo guri gaara oon geeyeyna garamaayo gabadhaas magaaladii markaan geeyey halkaas ayaa igu aragti dambeysay dibno maan arag dibno maan raadin dhowr jeer ayaa ninkii asaga ku soo laalaabteen su'aal weydiiyeen laakiin hadalkiisa waxba iskama bedelin anyways waqtigaasi booliisku waxay helayeen koolal aad u tiro badan oo dhinaca dadweynaha ah mid waliba sheeko been ayuu ka sheekeynayay ayuu muhiimadiisu tahay inuu lacagtaasi abaalmarinta helo arrintaasi dabcan waxay dib u dhac ku noqotay oo dib u dhigtay in gabadhii xog muhiim ah laga helo sababtoo ah wixii baa isku qasmay runtii iyo beentii baa isku qasantay oo way adkaatayba kii runta sheegayay iyo kii beenta sheegayay in la kala saaro qofaa soo hadlaya wuxuu odhanayaa shalay ayaan guri xaggana geeyey waa la imanayaa qofkiiba su'aal la weydiinayaa gurigii baa la tegayaa wixiiba waxay isu bedelayaan waxba kama jiraan iyo been kiiska gabadhii waa lagu weeraray kiiska gabadhan waqtigaas caan ayuu noqday gudaha dalka Taiwan oo kaliya tamaha Asia oo dhan buu caan ka noqday kiiska gabadhaasiba gudaha dalka Taiwan iyo dalka Japan labada dalba gabadhii dada yareed ee Taiwan lagu waayay kiiskeed caan buu noqday aad baa loo hadlayay haddaba su'aasha ugu muhiimsan ee meesha taal ayaa waxay tahay xagee ka dhacday Mariko amaba se maxaa ku dhacay halka markay sheekadu marayso ayay haddaba wareer kale isu bedeshay maxaan hore idinku sheegay koolal fara badan ayaa soo gaadhiyay booliiska koolalkaasi soo gaadhayay in badan oo dadka ka mid ah ayaa haddaba booliiska ka yaabiyey waxay uga sheekeeyeen booliiska sheekooyin isku mid ah sheekooyinkay ka sheekeeyeen waxaa ka mid ah inay heleen koolal soo wacay oo ka soo wacay dhinaca telefoonada dadweynaha wadooyinkii meelaha ku rakiban ayaa laga soo wacay waxaana leeyihiin dadkani shakhsiganna soo wacay waxa ku hadlaya luqadda Japaaniiska sababta inta badan booliiska dadkan u soo wacayaan ayaa waxay tahay Mariko sheekadeedii ayaa meel kasta lagu baahiyay sawiraanteediiba gidaarada train stationada wadooyinka waa lagu baahiyay marka sheekada gabadhan dadku way hayeen in gabadh dalka Japan u dhalatay gudaha dalka Taiwan lagu waayay sidaas awgeed shakhsigani ay koolalkiisa heleen ee soo wacwacay waxay uga sheekiyeen inay tahay Mariko sababtoo ah gabadhani waxay ku hadlaysay luqadda Japaaniiska dabcan dalkaasi Taiwan laba luqadood baa laga hadlaa waa luqadda Taiwaaniiska iyo luqadda loo yaqaan Mandarin laakiin luqadda Japaaniiskana way yara fahfahmaan ma qaan ma luqadooda xoogay shabahan laakiin way yara fahfahmaan badankooda luqadda Japaaniiska marka gabadhan waxay leeyihiin waxay dalbanaysay caawimaad caawiye oo kale erey noocaas isticmaalisay kadibna telefoonka ayay dhigaysay ayadoo qaylinaysa oo leh caawiye ay badbaadiye ay telefoon ku daminaysay dadka fariimaha noocaasi booliiska la wadaagaya hal qof maaha laba qof maaha waa intaasi oo qof oo qaar kamidna waxay leeyihiin gabadhaasi ma naqaan luqadda Japaaniiska ma ku hadlaysay luqadan aan fahmayn baad ku sheekeynayay inta fahmaysa luqadda Japaaniiskuna waxay lahaayeen gabadhaasi luqadda Japaaniiska ay ku hadlaysay waxaana dalbanaysay caawimaad ugu dambeynna waxay telefoonka dhigaysay ayadoo leh waayo maxaa ay ku sameynaysaa dhawaaqaysa arinta kale haddaba booliiska ka siyaabisay ayaa waxay tahay fariimo ayaguna isku mid ah oo wax kale sheegayaan oo gabadhaasi ku saabsan ayaa soo gaadhay fariimahaasi waxay leeyihiin gabadhaasi Mariko laftirkeeda waanu aragnay maadaama sawirkeeda meel kasta ku baahsan yahay toos ayaanu aragnay ayadoo muraayadii weyneed xidhan oo dhar cad xidhan oo lugaynaysa ayaa meelo kala duwan ku aragnay qaarkood ayaa waxay leeyihiin waxaan ku aragnay meelaha tareenada laga raaco qaar ayaa waxay leeyihiin waxaan aragnay annagoo fadhina inay gabadha noo soo dhawaato ina dhageysato waxa ku sheekaysanno markaan ku dhaqaaqna ay naga baxsato qaarkood ayaa waxay dhaheen meelo looqaqaan ku aragnay ayadoo kaligeed lugaynaysa mar allaaliya markaan gabadha ku dhawaano nisraano la hadlana way naga baxsanaysay arinta cajaa'ibka argagaxa badan ayaa waxay tahay dadkani waxay leeyihiin badankoodu gabadha markaan wajigeeda u fiirsanay qof caadi ah ma aanayeen waxay u muuqatay qof lagu dhex jiro amaba se ruuxaan oo kale adoo gabadhaas uma muuqan qof saaxiib oo bini aadan oo caadi ah haddaba maalintaasi uu Wang Leo saaxiibkii oo la xiriiray ninkii booliiska ah ee saaxiibkiisii kale xaaladda Leona oo uga warramay oo uga faalooday waxa la bilaabay in la sii xoojiyo dabagalkii lagu hayay ninkii Leo ahaa markii hore iyadoo dabagal lagu hayo oo ninkaas isha lagu hayo ba haddana warkan laga soo sheegay taasi waxay keentay in aad isha loogu hayo oo aad loo ilaaliyo loola socdo dhaqaaqiisa waqtigaasi gudaha dalka Taiwan buuq fara badan baa ka jiray hadalhaynta gabadhaas ayaa ka socotay warar badan oo kala duwan ayaanay bulshadu isla dhaxmarisay sideen la yiraahdo anna waan arkay anna wayga soo horbaxday wayga carartay way soo wacday sheekadii xabsi way isu bedeshay gabigeediiba markii uu haddaba Wang uga warramay ninkii askariga saaxiibkii ahaa xaaladani la yaab ka badan ay ku arkeen Leo
askarigii wuxuu sameeyey asaguna waxa uu la wadaagay arrintaasi xogtaasi cajiibka ninkii mas'uulka ahaa ee gacanta ku hayay kiiska gabadhii la waayay ee Mariko ninkan oo lagu magacaabo Lin Changji ayaa wuxuu amray in la kordhiyo dabagalka lagu hayo ninkii Lee ahaa markii hore dhowrkii maalmood ba hal mar baa la yara fiirin jiray meesha uu ku sugan yahay wuxuu sameeyo marka qaar dadkii asaga isku dhow yihiin baa su'aalo asaga ku saabsan laga weydiin jiray xaq uu tagay muxuu sameeyay waxa noocaas kala laakiin hadda waxa la bilaabay 24 saacba in isha lagu hayo oo dhaqdhaqaaqiisa la socdo ninkii Lee ahaa bartamaha bishii February sanadii 1990 dambibaadhe Lin oo ahaa ninkii mas'uulka ka ahaa kiiska Mariko iyo groupka ay wada shaqeeyaan waxay bilaabeen inay isha ku hayaan 24 saacba ninkii Lee ahaa meel kasta oo tago si tartiib ayaa loo daba socday cid kasta oo la kulmo meel kasta oo galo noloshiisa dhan ninkan isha ayaa lagu hayo la socday marka waxay sameeyeen mar waliba oo dhaqaaqo gaariga ay wataan ayay daba dhaqaajin jireen oo masaafo ay u dhaxaysiin jireen oo kumaani dhawaaneen zaa'idu oo meel fog ayuun bay ka daawanayeen oo diirad iyo waxba isticmaalayeen oo xogay marka qaar isha saagu fiirinayeen marka waxyaabo ay la yaabeen kumaani arag kaliya waxay arkeen ninkan inuu shaqaysanayo oo taksigaasi kaxeeyo deetna macaamiil uu qaado macaamiishaasina si nabad uu ku dajiyo lacagta ka qaato ka xisaabsado taban waxyaabaha uu ku sheekeenayo iyo wuxuu ku hadlayo dhan lama aanaysto maan maqlayn kaliya ta dhaqdhaqaaqiisa meelaha uu tagayo waxyaabaha uu sameeyo ayuun bay isha ku hayeen ayagoo waqtigaas isle hadii uu Mariko dilay ilooba kullayba meesha uu gabadhaasi ku soo qariyay meedkeeda ambaba soo ku soo aasay waa uu booqan doona oo tagi doona ambaba se uu ku gaaf wareegi doona kudwaad 10 bilood in kastoo ka soo wareegtay haddana qofka dambiilaha ah ee dilka geystay ee qof dilay ee haddana meedkiisa soo qariyay badana caadooyinka lagu yaqaan ayaa waxay tahay in uu ku gaaf wareego meeshii uu meedka ku soo qariyay inuu dul tago wiilaa tolomaa la helay tolomaa la ogaaday ambaba se inuu agmaro tolomiya la taagtaagay meelahaas laakiin nimankaani Leo kumaani arag asagoo tagayo ambaba se booqanaya meelo la yaab leh kaliya shaqadiisaas uu taga oo ka soo laabta xaga gurigiisu yimaada soo gaarigiisii wata haddaba waxay kula yaabeen ninkan habdhaqankiisa dambaariyaashu gaarigii buu saaran yahay maanta oo dhan tagsigii buu ku soo shaqaynayay gaariga kama soo degayba ninkani 24 saacba gaarigiisaas buu saaran yahay xilliga hordada markii gaadho meel yaro baarkin gaarigii la galaya gaarigii buu iska dhax seexanaya intuu hareerihiisana wada dhigdhigu ka buuxiyo sanabyadii uu sitay iyo warqadii buluuga ahayd iyo waxyaabahaas ayuu hareerahaas ka dhigdhigaya kadibna gaarigu iska dhax seexanaya ninkani ayadoo hadda guri leeyahay guri uu keligii leeyahay keligii degan yahay haddana gurigaasi ma dhax seexan jirin kaliya ta waqtiyada emergency-ga ambaba xaalad degdeg ah ugu baahdo gurigaas ayuu buu tagi jiray sida inuu kaadi uga baahdo ambaba inuu jidhka soo meedhanayo kale intuu gaariga agdhigo gurigiisa ayaa gurigii waxa ku galaya 1 2 3 ka soo baxaya yani waxaan 5 daqiiqo dhannayn buu ku sugnaanayaa guriga gudihiisa gabigaba way la yaabeen waniga maxaa ka qaldan guri dhan buu leeyahay maxaa gaariga dhax seexiyay mu gaariga isaga soo dago guriga iska dhax seexda kaligiiba guriga degan yahay sidoo kale dambaarayaashii muddada ninkan dabakal ku hayeen waxyaabaha ay ogaadeen ay ku arkeen ninkan waxaa kamid caadooyinkiisa inta aanu guriga soo gelin marka hore waxa uu sameeyaa gaariga markuu guriga agtiisa soo istaajiyo xoogay buu gaariga ku dhax jiraya deetana gaariga intoona ka soo degin ka hor ayuu wax akhrinaya yani ducooyin oo kale wax u akhrinaya ducadii markuu dhammaysto uu tartiib gaariga iska furaya intaanu gaariga ka soo wada bixin buu hareeraha fiirinaya oo guriga iyo cirfidiisa saa u qooransanaya oo saa u fiirinaya sidii yani inuu meelahaas wax ka raadinayo oo kale inuu meelaha wax ka dhow yihiin oo guriga wax ku dhuumanayaan oo kale guriga markuu hubiyo inaanay waxba agaarkiisa joogin baa waxa bilaabaya hal mar ayuu guriga orod ku galaya kadibna asagoo degdegayo ordaya ayuu hal mar guriga ka soo baxaya degdeg intuu albaabka ku xidho ayuu gaarigii soo galaya kadibna wuxuu sameeyaa gaarigii buu daaqada gib ka soo siinaya waxa uu hab siinaya sanabkiisii dahabiga ahaa ee buura asagoo haddaba sanabkii habka siiyo saa ugu dhagan ayaa waxa uu bilaabayaa inuu wax akhriyo oo ku dul ooyo oo ilin ka daadato ninkan wuu barooranayaaba wuu oohinaya argagax fara badan ayaana ninkan ka booqda kadib wuxuu sameeyaa ilintii waxba iska tirtiraya xoogay wuu yara sheekaysanaya waxba akhrinaya kadibna naqas wuu hal mar qaadanaya kadibna wuxuu bilaabay inuu gaariga ka xayo si uu bilaabo shaqadiisii maalinle dambaariyaashu way yaaban yihiin ninkan ay dabagalka ku hayaan waa nin ay uga shakisan yihiin inuu dambi dila geystay waa dila ahaan bay ninkan dabagal ugu hayaan laakiin ninka xaalkiisa markay u fiirsadeen xaalad dambiile kama muuqato oo waxa ka muuqata xaalad victim xaalad yani qof waalan raba yani sida ninkan saaxay kuma ah bay leeyihiin maxaa ka qaldan waa maxay sidani ugu dambeyn haddaba taariikhdu markay ahayd March 4 sanadii 1990 detective Lin iyo booliiskii ayaa waxay go'aan ku gaadheen in ninkan ay soo qabtaan ay gacanta ku dhigaan ninkan muddaanu dabagal ku haynaa ilaa hadda wax faa'iido kama hayno la yaabkiisa uma daawanaynaa waa inaan soo qabanaa laakiin waxay sideen haddii aad approach gareysaan oo yani qaab caadi ah ugu tagtaan waxa laga yaabaa in habdhaqano la yaab leh oo la soo baxo dagaal ama bas emotion ka cararo sidaas ogeed waxay isku wada raaceen ninkaasi inay hal mar gacanta ay ku soo dhigaan soo qabtaan soo fariisiyaan kadibna halkaas su'aal ay ku weydiiyaan okay ninkii dabagal bay ku sameeyeen suu socday gurigiisii buu istaagay wixii uu akhrin jiray buu akhriyay gaarigii buu tartiib ka soo degay orod buu guriga ku galay
gurigii haddaba markuu in yar ku jiro uu ka soo baxay asagoo ordaya gaarigii markuu saa u dhex fadhiistay ayaa waxa uu arkay booliiskii oo xaggiisa soo socda gaarigii mabaanu sii wada gelin markuu arkay booliisku soo socda maxaa uu sameynaya kula tahay daaqadii buu xidhay wuu cararay no ma cararin ayagu waxay islahaayeen intaanu baxsan gacanta ku dhiga ambaba se balaaye intuuna nagu dhigin oo idinku qayqaylin amba wax akhrin amba wax idinku dhufan nimankan diyaar bay ahaayeen falcelin kasta oo ninkaasi uga timaada inay waajahaan diyaar bay ahaayeen laakiin waxay la yaabeen ay ku arkeen falcelin aanay marnaba ka filin ninkii asaga markuu arkay booliisku soo socda intuu gaariga ka soo dego soo xidhay ayuu xaggooda u soo orday oh my god thank you waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin wuu mahadcelinayaaba waraxay maxaa qaldan inaanu gacanta kugu dhignaan u nimid wax mahadcelintan iyo waxani hala waa mahadsantihiin bagad soo gaadheen thank you dambaarayaashii way isu fiiriyeen maxaa qaldan ninkii waa soo qabteen ugu dambeyn qolkii dambiilayaasha ayaa la soo fadhiisiiyey ninkan wuxuu leeyahay waa runtiin waa mahadsantihiin waaba waajib inaad raaco khasab weeyaan inna mariya khayr baa sheegaysaa niman yahoon inna mariya anaa idin ogol anaa wax walba idin sheegaya ina kaxeeya haddaba ninkii leeyahaa markii xarunta booliska sidaa loo soo geliyay uu saa u soo galay waxa uu bilaabay inuu yidhaa waa mahadsantihiin anuu halkana siif ku dareemaya xaggana dhammaan ku dareemaya xaggan haga kaxaynina meeshanaan rabaa welibana waxa uu bilaabay halkaasi kumaanu istaagin in raggii soo kaxeeyey ee booliiska ahaa oo mid ugu mahad celiyo mid walba uu tago ku yidhahdo waa mahadsan tahay aad baa u mahadsan tahay lugaha ka taabto oo sujuudda ka dhunkado uu habsiiyo habdhaqankiisa ninkan way la yaaban yihiin bal waayaheenna mariba ku yidhahda ninkaaga yaa baa tahay qolkii markii saa loo soo fadhiisiiyey dambaarista ayaa la yidhi nihoon annagu adiga waxaan dabagal kuugu haynay inaad dembi geysatay waxaana gacanta kuugu soo dhignay sababtoo ah waxaan kaaga shakisannahay inaad dishay ood mas-uul ka tahay waayitaanka gabadha lagu magacaabo Mariko marka waa maxay waxaani oo la yaabiyo falcelinada noocan ee kaa soo fulaya maxaa qaldan say wuxuu jiraan liyo haddaba markuu arrintiisa uga sheekeeyey oo qisada uga sheekeeyey waxay dareemeen in maalintaas ninkan naftiisa ay badbaadiyeen okay say wuxuu dhahan wuxuu yidhi niman yahoon habeennimada kaadi xun baa ay haysay muhiim ayaanan u ahaa inaan gurigaygaasi galo oon suuliga galoon ka soo baxo sidii caadiga ahayd gaarigayga intaan ka soo bixin ka hor waa ducaystay ducadii markaan akhriyay tartiib waxaan bilaabay inaan gurigii galo gurigu waa mugdi in muddaa guriga anu maana dhex seexan oo bilaa koronto sidiisaba iska mugdi buu ahaa aayar baan soo galay albaabkii dibaddan celiyaan xidhay kadibna gurigii markaan soo dhex lugeeyay anoo u socda xagga suuliga baa hal mar dhegtayda waxa ku soo dhacay sanqadh qof neefsanaya welibana zaa'id u neefsanaya oo kale sanqadha iyo naqaskaasi meesha oo ka imanayo waa qol ka mid ah qolalkii gurigaas guriga cidna ma degana cidna kumaan ogeyn guriga keligii ayaa deganaa furihiisa anaa haya markii ugu horreysay ee sanqadh noocaasi gudaha gurigaasi ka maqlana maanay ahayn oo marar kale ayaan maqlay sidaas awgeed waxaan go'aan ku gaadhay anigoo tartiib u socda inaan waxaanay oo dhan iska dhaga tiro deetana suuliga galo xaajadeeda soo dhammaysto tartiibteednaan ka soo laabto waan lugaynayaa waxba ma arko qiyaas baan ku socdaa waxaan dhegaysanayaa oo keliyaata dhegahay ku soo dhacaya waa sanqadha iyo dhaqdhaqaaqa gudaha gurigaasi ka socota iyo sanqadhaan u samaynayo anu faraha hore ayaan ku socdaa tartiib aayar baan dhukubsanaya wax sanqadha ma samaynayo suuligii haddaba markaan galay teg baan xaajadeeda u gutay kadibna waan ka gaari kari waa inaan xataa si fiican u meemedho biyeer baan xoogay wejiga saas igu shushubay tartiib waa ka soo baxay markaan soo baxay sanqadhii ma jirto qolka sanqadhii ka imanaysa gebi ahaanba way istaagtay anoo haddaba soo socda oo xaggii albaabka u soo socda albaabkii dibadda laga baxayay baa hal mar waxaan maqlay sanqadh xagga dambe ka imanaysa markaan fiiriyey waaba gabadhii Mariko ahayd ee la waayey oo qaylinayso dhawaaqayso igu soo ordaysa ayadoo luuqadda Jabaaniiska ku hadlaysa ayaa waxay igu tidhi why maxay tahay sababtu ereygaasi ku celinaysay xaggayga u soo ordaysay anna wax alla haliyo wixii oraday igu jiray lamaana hadhin saan u soo ordayay albaabkii degdeg u furay qab albaabkan ku celiyay xataa maan quflin orod baan kaga soo baxay qoftii albaabka ka soo baxdayba anoo ordaya oo gaarigii saa u galay baan idinka idan arkayba wixiina markaan fiiriyay gabadhii soo daba ordisay waan waayey markaan niman yahoon waa mahadsantihiin maalintaa naftayda ayaa badbaadiseen qoftaasi waxay diyaar u ahayd inay naftayda dhaafiso maalintaas waxaan dareensanaa inay noqon doonto maalintii noloshadii ugu dambaysay laakiin ilaahay baa ii keen soo diray idinkaa badbaadiyey marka waa mahadsantihiin xaq badul inaan idin mahad celiyo ninkii waxa ugu dhaartay oo dambaarayaashii ku yidhi niman yahoon gurigaasi waxa degan Mariko ruuxaanteeda guriga gebigiisaba way igala wareegtay cadaab iyo rafaad baan ku noolahay naftii ilaahay baa ii keentay oo ma dhex joogi karayo oo kama soo kaaji karayo oo jirkii ma soo meedhan karayo gabadhan way rafaadisay noloshii way nacsiisay fadlan gurigan iga bedela oo guri kale oon ku nasto hal geeyo anu qoftan way dhibtay naftii baa ii keentay guriga haddii aan galaba ayada ku dhex jirta ayada joogta halka markay sheekadu maraysay dambaarihii ayaa ku yidhi balaamus joog
stop. Okay, su'aal baan ku weydiinayaa. Maxay tahay sababta ay adi si gaara kugu beegsanayso ruuxaanta Mariko? Maxay ummadaha kale u dhibaateen weydaa? Maxay gurigaaga si gaara ugu soo degtay? Maxay adiga si gaara dhibaatada inta ay laga ciqaabtaasi kugu marinaysaa? inta markuu ku yiri ninkii leeyaha uu aamusay dhigid ayaana ka soo daatay. Okay, hadal buu ku yiri hadal adan jawaab ka sugaya. Maxaad ka biisay ku beegsanaysaa adiga ku si gaar kuugu eeganaysaa? Maxaad ku samaysay? Isla waqtiga ninkan wareysiga lagu waday, police ayaa waxa loo diray gurigiisa si baaritaan loogu sameeyo oo loo soo fiiriyo. Maadaama ay oga shakiyeen ninkan hadalkiisa markay dhageysteen, waxay dareemeen in gabadhaasi lagu magacaabo Mariko, maadaama hadal haynteedu uu magaalada qabsaday ee la yiri gabadhaasi ruuxaanteediiba magaalada wareegaysa oo qof waliba uu ka sheekeynayo oo TV-yada laga soo deynayo oo la isdhax wado. Sheekadaasi inuu rumaystay baa laga yaabaa oo macquul ah. Gabadhana ay barunto gurigiisii ay kala wareegtay dhex degan tahay, mar waliba guriga yimaadana ay cabsi galiso soo gurigaas ooga dheeraado. Marka waxa la yiri bal inay run tahay iyo in kale gabadhaasi inay gurigaasi ku dhex nooshahay run ugu dhex nooshahay iyo in kale bal hala soo hubiyo. Askar baa loo diray, gurigiiba galeen oo raadiyeen oo dhex soo socdeen, laakiin haba yaraatee wax raad ah oo muujinaya nafar kale bini'aadana inuu gurigaasi ku nool yahay way soo waayeen aan asaga kaliya ka ahayn. Yani qof kale hadduu ku nool yahay at least waxa la arki lahaa cuntooyin uu samaystay, wuxuu karsaday, meel uu seexday, guriga gebigiisaba lama nadiifin, lama dhex gelin, lama dhex socdo. Muddo hore ayaa ugu dambeysay in xataa sariirta la dul fuulo. Kadib waxa la bilaabay ninkii leeyaha in lagu cadaadiyo inuu hadlo oo sheego waxa xaqiiqda ah ee jira. Ninkii asaga ah wuu hadli waayay, wuu aamusay, waxba wuu sheegi waayay. Laakiin 4 maalmood kadib cadaadis dheer kadib ugu dambeyn wuu hadlay. bal inkaar qabahani waxa uu sheegi doono dhageyso. Wuxuu yiri maalintii ayada ahayd meeshii train station-ka ahayd baan ka soo qaaday, laakiin markii hore waxa idin ku iri magaaladii rabtay baan geeyay, laakiin magaalo maan geynin. Been baa idin sheegay. Hay xaqiiqdiisi gabadha habeenkaasi horta ayada meelahaas aan kala tustusayay, waan sheekaysanay, waa isku kaay daba dhacdo horta si fiican baa isu fahnay. Meel kala duwan baan geynay, xaggan saasa la dhaha, xaggan waa noocaas. Waxaan isu bedeloon dareemaba inaan hayo shaqadii dadka dalxiisayaasha meelahaas tususi jiray oo kale inaan shaqadooda hayo. Okay, saan u wadwado meelahaas sidaas soconay. gabadhii waxaan ku iri ka waran haddii aad gurigayga tagtid oo gurigayga iska soo degtid lacag yar iska bixisid intaad magaalada ku sugan tahay gurigayga iska deganow. Saan hore ku soo sheegayba waa iska caadi, waa arrin iska caadi ah oo badanaa dhacda oo markii u horeysay Mariko warkaas maqlayso maaha. anyway saaxiibayaal ninkii warkiisa waa maqashay, hay'abay ku tiri ma lahayna mari gurigiisii buu geeyay. Iska soo nafis buu ku jirka soo meedho, qol gaar ayuu dejiyay, laakiin waxa bilaabay gabadha ayada ahayd markay soo meedhatay ee qolkii soo gashay inuu qolkeedii ugu soo galo. Qolkii uu ayada dejiyay ayuu bilaabay inuu ugu soo galo. Ayadna maana xumeyn, way soo dhaweysay, way iska sheekaysanayeen, laakiin damac ayaa galay ninkii liyaha. Damaca kale ma taqaana idin sheegi maade damac nin shaxaariya gala ayaa galay ninkii asaga ahaa. Waxa uu ku yiri qof yahay waxay la qabo. ayadna waxay ugu jawaabtay no way, that will not gonna happen. Saaxiib waxaasi wax dhici kara ma aha, warkaas waraan ka yeelay maahe, qolka iga bax waan seexanayaa. naas walkiis kita waxaasi waa caadi iska dhig. laakiin si cad oo qayaxan ayaa ninkii asaga ahaa ugu jawaabtay, waxaana tustay inaanay raalli ka ahayn warkaas iyo qalqaloocaas uu la yimid. Okay buu ku yiri malaha, uu isaga tagay. markii ay seexatay ayaa waxa uu la soo baxay baalkii yaraa sida leebi qaansada ku ugaarsanayay bisadaha ayda iyo waxaas uu ku leenayay ayuu la soo baxay. gabadhii hurda ayuu nag ku siiyay hadaba 4 jeer waxbuu nag ku siiyay gabadhii ilaa dhimatay. muxuu gabadhan ku haystaa? maxaad ii diidaysaa? rejection-ka ay siisay Leo waa uu ka seexan waayay xanaaq. gabadhii sida inay dhibaato u geysatay ay wax ka dishay oo kale ayuuba gabadhii halkaasi kuma istaajinin markuu dilay qoorteedii ka gooyay, gabi ahaanba uu ka reebay jirkeeda kale. maxaan ku iri madaxeedii jirkeedii buu kala saaray, kala gooyay inkaar qabe. subaxnimadii dambe hadaba muxuu sameeyay? meydkii buu soo qaaday, gaarigiisii ayuu saaray, meel fog ayuu hadaba ku soo duugay amaba se uu ku soo aasay, waana soo laabtay. haddaba isla habeennimadii xigtayba gurigiisa waxa uu ku arkay dhaqdhaqaaq iyo neef, wax neefsanayo gudaha gurigaasi kula jira oo kale. balaayada iyo masiibaduba isla habeenkaas ayuu bilaabmatay Leo. habeennimadii u horeysay waxyaabaha uu maqlayay kaliyaata waxay ahaayeen sanqaro iyo dhaqdhaqaaq, alaab meel taallay oo meelshii ka dhaqaaqday iyo waxyaabo wax saas u weyn ma ahayn. laakiin masiibadu waxay ahayd oo la kulmay habeenkii xigtay Leo maxaa ku dhacay? leerkiisii iska damiyay, aayar sariirtiisii iska jiibsaday, wuu seexday. haddaba asagoo sii seexanaya oo sariirtii saaran ayaa waxa uu maqlay sariirtiisa hoosteeda wax ka sanqarinaya, dhaqdhaqaaq ayuu ka dareemay. haddaba ninkii asaga ahaa sanqadha sariirta hoosteeda ka baxaysa markii uu dhageystay ayuu yiri waxaan normal maaha. sariirta hoosteeda markuu saa u fiiriyay waxa uu ugu tagay oo arkayba madax soo fiirinaya.
acuudu billah madax dhan oo saa soo fiirinaya oo saa indhaha kala qaaday madax ma taqaanaa waa gabadhii Mariko ahayd wajigeeda oo Sooniya gabadha soo aasay soo aniga meel ku soo duugay gabigeedaba meedkii wuxuu dhan isla qaaday shalay ee soo qariyay waxay maxaa sarartii hoos keenay uu yaabay wuxuu yiri arinta aniga nolosha igu cadaabtay ee iga yaabisay ee fajci ama kaaga igu riday ayaa waxay tahay madaxan gurigaygan ku arkaa waan qabtaa waan soo aasaa waan soo duugaa dhagaxaan baan dul dhigdhigaa maalin kadib waxaan arkaa madaxii guriga hadana ugu dhex jira hurdadiibu ii diiday buu leeyahay madaxani anoo hurdayaan arkaya madaxii dul taagan oo soo fiirinaya marka qaar guriga dhexdiisu eryanaya waxaanu mar walba leeyahay uu isticmaala hal ereygaas oo ah why mabase waayo oo luqadda Jabaaniiska madaxani asaga ah ciriiri buu noloshaydii geliyay aniga ciqaabiya cadaab madaxaas igu filan rafaadku mariyay sidaasi ogeed ninkan waxa uu go'aan ku gaaray inuu guriga gabi ahaan ba isaga guuro oo uu dhaxdago gaarigiisina walibana uu ka dhigo wada sanab iyo waraaqo duco iyo balaayo uu ka dhax buuxiyo asagoo isla waxaasa ka difaaci doona ruuxaantani dhibka badan ee daba taagan Marikadan daba socota madaxeeda waxa uu arkay meesha kaliya tuu kaga badbaadiyaa inay tahay gudaha gaarigaas meel kale aanu safe ku ahayn oo tamay ninkii asaga ahaa Leo waxa uu ogolaaday inuu booliiska soo tuso meeshii uu ku aasay meydka Mariko laakiin arinta la yaab ka noqotay ayaa waxay tahay markii la tagay qabrigii meeshii ku aasay gabadhii ee la qoday waxa lagu tagay kaliyaata jirkii kale ee Mariko laakiin madaxii kumaan arag asaguna wuxuu taagay yahay ayada iyo madaxeedii intaas la soo qaaday oo meesha ku wada aasay oo waan huba taas madaxii xaguu maray madaxii wuxuu soo baxay inuu ninkan daba taagnado dhibaateeyo ilaa maantadan reer Taiwan waxay aaminsan yihiin Mariko inay tahay shakhsiga kaliyaata ee kiiskeedii ayadoo xallisay ee ku kaliftay ninkan inuu hadlo oo qirto waxaana dad badan qirsan yihiinba koolalka faraha badan ee booliiska soo gaadhayay inay ayadu sababtay ama se ayadu xataa samaysay koolalkaas sababtoo ah marka qaar dadka la iska soo wacaya waxaana la maqlayaa codka gabadhaas ayadoo dhawaaqaysa oo leh waayo maxaa dhacay sabab ereyo Jabaaniis ku sheekeynaysa marka gabadhan ayada kiiskeedii xallisatay kiiskeedii dilkeeda loo geystay iyo dulmigii ayada ayaa xallisatay ayay leeyihiin ninkii asaga ugu dambeyn waa la qabtay waa la xidhay xabsi daa'im baa lagu xukumay maantadana idin la hadlayeen ninkii xabsi buu ku jiraa Leo waa nool yahay xabsiga ayuuna dhex yuro dhex fadhiyaa oo xidhan yahay ninkaas ilaa hadda ninkii la ahaa waxa lagu yiri niyahoon xukunka waanu ka khafiifin hoos baynu dhigi ee madaxii meesha ku qarsan noo sheeg meesha ku aastay noo sheeg laakiin wuxuu yiri ku adkaystay warbartaasan ku aasay waan isla aasay anigu marka sheekadani waxay ahayd sheeko runtii dadkii ka yaabisay dibbaarayaashii ka yaabisay booliis ka yaabisay shacabka ka yaabisay arrimaha la yaab kale hadaba waxa kamid ah ninkii dibbaaraha ahaa kiiskaasi gacanta ku hayay wuxuu leeyahay maalmaha kamid ah anoo ku jira keligay baan ku sugnaa guriga ninkaasi Leo baaritaan ayaa sameeyay anoo hadaba wax fiirinaya ayaa hal mar waxaan dareemay jug yani xagga dambe oo saaliga soo riixo saalisi kala tuuray waxa uu la yiri waxaan aaminsanahay inay jirto awood dabiiciga ka baxsan oo ninka dhibaato u geysanaysa teeda kale koolalkii faraha badnaa ee booliiska la soo garaacayay ee shacabka la garaacayay ee la wacayay ee wixii oo dhan way istaageen markii kiiskii la xaliyay oo ninkiina qirtay dambigii oo dhan wada qirtay wixii oo dhan gabadhii la oran jiray meelahaas aan ku aragnay iyadoo ordisa tii dadka hor ordisay telefoonada la soo garaacayay waxaas oo dhan hal mar ay istaageen kiiskiina halkaas ay ku istaagay gabihaanba bal idinka aragtidiina maxay la tahay sheekadani ma sheeko ismoodsiisa oo ninkaas iska wadwatay bal aragtidiina waxay la tahay xaqooso koomitiga nagula wadaaga waxaana dadku sheekeynayeen ma iska malawaalo ahaa ninkan maadaama gabadhaasi foolxnu dilay ma wuxuu iska sawiranayay inuu baa cabsidaasi mise wuxuu ugu tala galo ogaan iyo been iyo propaganda ayuu waxa uu sameeyo waxa uu dareensanaa inta bagal lagu hayo bal idinku aragtidiina xaqooso koomitiga nagula wadaaga gabihaana muuqaalkeena maanta halkaas ku yahay ilaa halka aad nala soo gaadhay waad mahadsan tahay lajimid baa tahay laba waxay laawin in muuqaalkan like saartid marta halkan nala soo gaadhay sidoo kalena channelka dadku cusub tahay wali subscribe saarina subscribe saartid la socotid muuqaalada dambe xiisaha la soo socda gabihaana muuqaalkeena maanta halkaas ku yahay assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala barakatuh goodbye